cufan berri channel maraykanka oo joojiyay lacag bixinta daryeelka carruurta ee Minnesota raadinta diyaaradii Malaysia Airlines MH370 ayaa dib loo bilaabay madaxweynaha dalka Ukraine oo soo jeediyay in madaxweynaha Maraykanku u soo booqdo dalka Ukraine China militariga China oo agagaarka Taiwan ku sameeyay jimicsi warkii caalamka oo faahfaahsan ku soo dhawaada hay'adda caafimaadka iyo adeegga dadweynaha ee Maraykanka ayaa hakisay lacagaha daryeelka carruurta ee gobolka Minnesota kadib eedeymo musuqmaasuq baaritaan lagu doonaya in mar dambe lagu raadiyo diyaaradii Malaysia MH370 oo ku luntay 2014 ayaa dib loo bilaabay rajo ah in dib loo helo diyaaraddaasi madaxweynaha Ukraine ayaa ku booriyay Donald Trump inuu booqdo Ukraine si loo xoojiyo dadaalada nabadda ciidamada Shiinaha ayaa jimicsiyo military ka sameeyay hareeraha Taiwan taasoo kordhisay xiisadda gobolka dhageystayaal warkii caalamkan ka hayno waa intaas ku soo dhawaada warkii Soomaalida ku soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay wareysi ay ka qaaday Al Jazeera in aanay haatan Israa'iil xiriir la lahayn balse ay dhawaan la xiriiri doonaan waxa kaloo uu sheegay in Israa'iil ay qaaday tallaabo ka nixisay markii ay aqoonsatay Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka nixisay aqoonsiga ay siisay Israa'iil Soomaaliland waxa weeyaan arrintaasi beerka jecli xaydha nicbi wararka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay in bisha sanadka cusub ay bisha foodee lagu soo haysa ay aqoonsan doonaan dalal badan isagoo wasiiradiisa isugu yeedhay galabta waxa kaloo ay Soomaaliland sheegtay inay xidhay xafiiskeedii ay ku lahayd waddanka Djibouti u yeedhatayna safiirkeedii sidoo kalena Djibouti ay u yeedhatay safiirkeedii maaha markii ugu horreysay ee arrintani dhacdo dowladdii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ka horreysay dowladda Cabdiraxmaan Ciro taaba waa la kala xidhay iyadoo ay kala xidhan tahay buu Cabdiraxmaan Ciro qabsaday waddanka dib buu u furay maantana waa la kala xidhay runtii waxaana dhibaatada keenaya siyaasadaha isdiidaya siyaasadahu ay ka mid tahay danaha iyo aqoonsiga Djibouti haddii Soomaaliland la aqoonsado dan uguma jirto maaha cadowtinimo kale la isku qabo intaasaan ku dhaafaya wararka Soomaaliland ku soo dhawaada channelkeenan wixii warar intaa faahfaahsan waxaad ka heli kartaan bad iyo berri channel